وقرون بوعدي عيارها بربارتي لصوحي ترتاح وباقي بوشي خيري دوما يا أبو سركعة صعب 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 بدنها صعب 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 بدنها tartanka ugu xiisaha badan gudaha Somaliland ayaa tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland kaasi oo la filayo inuu galabta si rasmi ah uga furmo garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa. tartankan ayaa ka kooban sidoo kale qaybo kala duwan sida kubadda cagta, ciyaaraha basketballka iyo ciyaaraha orodada, waxaana tartankani ka qayb gali doona guud ahaanba 14 gobol ee Somaliland ka kooban tahay. haddaba haddii aynu yar dib ugu laabano tartanka kubadda cagta ee Somaliland ayaa ah mid aad u xiiso badan oo ay daawadaan shacabka reer Somaliland, waxaana la bilaabay sanadkii 2002 waxaana xilligaasi ku guuleystay xulkii gobolka Maroodijeex. sanadkii 2003 ayaa mar kale la qabtay tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland waxaana ku guuleystay xidigihii gobolka Togdheer kuwaasi oo ka adkaaday xulka gobolka Sanaag. tartankii xigay ee ciyaaraha gobolada Somaliland ee kubadda cagta ayaa isna la qabtay sanadkii 2004 waxaana ciyaartii ugu dambeysay isku haleelay xulalkii Sanaag iyo Togdheer, waxaana ay guushu raacday xulkii gobolka Sanaag. sanadkii 2007 Togdheer iyo Awdal ayaa isku haleelay ciyaartii kama dambaysta ahayd, waxaana koobka hanatay Togdheer oo markii labaad hoygeeda geysay koobkoodii labaad ee kubadda cagta. sanadii 2011 ciyaaraha gobolada Somaliland ayaa ahaa kuwa aad u xiiso badan iyadoo oo ay ka dhaceen amaba ay ka qabsoomeen gegada ciyaaraha ee LMC Stadium ee magaalada Burco, waxaana xilligaasi ciyaartii finalka fooda isku daray gobolada Maroodijeex iyo Hawd, iyadoo guushuna ay raacday gobolka Maroodijeex oo xilligaasi 1-0 ugu awood sheegtay xulka gobolka Hawd, iyadoo goolkaasina uu ahaa gool uu saxeexay ciyaaryahanka Cabdiriyaad, halkaasi oo ay koobka ku soo qaadeen koobkii 6aad ee ciyaaraha tartanka gobolada Somaliland ayaa isna la qabtay 2013 waxaana isugu soo hadhay mar kale gobolada Hawd iyo Maroodijeex, waxaana ku guuleystay gobolka Maroodijeex oo sidaasi ku hanatay koobkoodii 3aad, waana gobolka ugu koobabka badan leh marka la eego ciyaaraha kubadda cagta ee gobolada Somaliland. sanadkii 2016 waxaa ku guuleystay koobka gobolada Somaliland oo sidoo kalena ahaa koobkii ugu dambeeyay gobolka Awdal kaasi oo ka guuleystay gobolka Saaxil. haatan ciyaarta maanta lagu bilaabayo tartanka gobolada Somaliland ayaa waxa fooda isku dari doona gobolada Hawd iyo Buuhoodle, waxaana xusid mudan in gobolka Hawd uu yahay gobol aad caan ugu ah ciyaar wanaag iyo sidoo kale in marka uu gobolka Hawd ciyaarayo uu garoonku ka camirnaan badan yahay marka ay gobolada kale ciyaarayaan, taasi oo xiiso gaaray iyo xamaasad ciyaarta u samaysa. برشدا وحي كل ميان برشدا حناقته وكدير حناقته وكدير يا حما كوبساتو وحدي اير لغا بدشان اظن كعينين بوق ودادا كلويو هليل ودادا كلويو هليل